السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته مeel walba dunida ka joogtaan fiidnimo wanaagsan maalinimo wanaagsan xilli weliba iyo waqti weliba idiin tahay dunida meel walba idin nagala socotaan kula soo dhawaada Crypto Somali TV. Alright. Intaanu dhammaynaya markuu intaan dhammaydkina Binance Smart Chain. Stayran suyna hadda already swap buu sameeyay successful buu yiri withdraw had sameynaya wuxuu ka saarayaa haddaad halkan fiirisaan asset already detected beedka waa la yaacay Fawzi iyo Maxamed Jaamac la yaacay al-Carrab. Okay, hadda daan ugu gudubno markaan wareegno qaybta Binance Smart Chain-ka waxa laga rabaa inaynu 491 noogu jirto halka inay kusoo darsanto wax yar ka dib. laakiin network-gaan bedelay isla markii wax isku qasay laakiin inaan ka baxno ma ahayn dib malaas hawshu iska wadanaya. marado kala bax horta wax problem ugu ma hayso laakiin waa muhiimada intuu ka qaaday waynu noqonaa. Okay, suuqeena kasta yar adigu ku dhawaad wuxuu naga qaatay hadaad wuxuu naga qaatay $13 sameyn iyo hadda $25 nasiib waayo waxay ku xiran tahay mar walba traffic-ka ka jira maxaa la dhahaa ka jira ishak Ethereum ka jiro mar waa qaali mar waa raqiis marka mar walba waxay ku xiran tahay traffic-ka ka jiro. Okay, halkaan la rabaa inay soo gasho konkara wuxuu ku yiri wuu ku hambaliyay conversi okay T1 pending withdraw BC choose withdraw MetaMask. Okay, all right. عادين اوتوماتيك وصل لهاد لكن I don't know why انه ودي BNB موجود لكن احمدو كتبت كلام يا أستاذ BNB موجود له transaction processing BC وأنا أدرس كاس على كيني وحاجة أنا تقول شيء كل شيء غاية أرد لك أنا كبيت ونود حجر لكن بروبلم ملهن السبب وحنا قتي توتال هذا أركتين ما أقانو توتال هذا أركتين كان إسكحر مركا إيكادي. أوكي هل كان محنا صقلي هذا أفر بقول كويس عشان نهاية هذا هل كان أي وقت ماذا هذا دربتانه transaction كه كان يتكون كتان view ده أو بيجي scan كه كتبنا هل كان إماو حضرت B20 token transaction. أوكي كان هل مالين كهر أيو كتب بانكيك أفرتني 5 second ago أيوة حصل paid تردن واكنا 500 حبو iyo 22 waqti aan ka soo rajinay qaybta ether ERC20 waxay imaaday qaybta Binance Smart Chain waa sida bridge loo sameeyo haddaad fahantay kuwa kale waa fahamsan tahay mar walba meeshaad bridge ka sameynayso dooro wallet-kaad ka qaadayso ma Ethereum ba mise waa Binance Smart Chain mise Tron connect garay wallet-kaasi token-ka aragto dooro kadib qaarkood option wuxuu ku siinayna address-ka aad rabto isla address-kaas qasab maaha address kale aad gelin kartaa laakiin kan nama siinin marka hadaad rabto address-ka lagu geenayo oo wallet-ka kale aad gashanaysaa haddii uusan option lahayn isla address-kaas qaybtiisa kale waa inay kugu jiraataa network-gaasi uu ku ahaadaa fee-ga meesha laga qaadayo fee-giisu waa inuu ku yeelnaadaa haddii Ethereum laga soo qaadaa waa inuu fee Ethereum ku yeelnaadaa haddii Binance Smart Chain laga qaadayna waa inuu ku yeelnaadaa BNB. intaa waxaan u maleynayaa waa la fahmay ayaan u maleynayaa haddaan dul maro kan waa iska xirayaa marka inta maxaa la shaashada bal jooji bal magiciisi
iga naqsaba keyboardkaaga baashan si loo joojiyo waa kaslahay okay good waxaan kusoo noqonayaa marka shaashadeeda ayaan share garanayaa haddii ilaahay idmo waa la wada jeeda soo maahan okay sida dhan sheegin hadda tusaale ahaan haddaan ka qaadayno haddaad ka qaadayso Binance Smart Chain walletkiisa waa inuu BNB ku yeelanaa haddaad ka qaadayso Ethereum waa inuu ku yeelanaada Ethereum iyo coinka qaadayso dooro walletka ku xir intaa waa la fahmay marka waxaa noo dhiman wallet sida loo subo waa sameynay sida loogu daro network kale waa sameynay qaabka bridge loo sameeyay oo page-kan waa sameynay waxaa noo dhiman Maxamed jaamac uu weydiiyey qaabka oo loogu gato bankeyga iyo Uniswap-ka soo mahan asxaabta hey saasay ahayd okay good kan iska xir okay hadda waxaan gelaynaa qaabka bankeyga wax loogu gato marka khayarta bankeyga sidiisaba waa exchange oo decentralized waaye uma baahna magac inaad samaysato username uma baahna wuxuu u baahan yahay kaliya waa dukaan kala gadaayo idin dhaxeeya ninkii wax gadaayo iyo wax gadanayo ayuu u dhaxeeya adigoo imaanaysa lacagtaada la imaanaysaa ninna alaabtiisu la imaanayaa kadib meesha ayaad ku kala bedelaysaan waa ku kala qaadan oo kala tegaysaan waa dukaan open iska ah oo cidna aan maamulin oo qofna aan lahayn gooni leh waxba ku kala bedelaysaan waa ku kala tegaysaan waa inta kaliya bankeyga Uniswap is the same maxay ku kala duwan yihiin Uniswap-ka waxyaalaha lagu kala bedesho waa waxa ku dhisan Ethereum ERC20 bankeygana waxa lagu kala bedesho waa wax ku dhisan network-ka Binance Smart Chain way jiri karaan coinan labada dhinac laga heli karo in Binance Smart Chain laga helo Uniswap laga helo way dhici karaysaa sida hadda ayaan hore coinkii u dambeeyay Ethbad Binance Smart Chain lagu dhisay bankeyga lagu kala gadanayay markii dambe waxay sameeyeen waxay kusoo dhis kareen Uniswap-ka qayb Ethereum ku dhiseen macnaha contract kale oo Ethereum u sameeyeen ay ku dhiseen xaggan oo laga gadan karaa marka qof walba asaa choices kale markaas hadda hadii labada dhinac laga kala helayo meesha uu ka gadanayo asaa choices kale waxay ku xiran tahay sababta uu review waa laakiin concept-ga in la fahmo bankeyga wax ku dhisan network-ga Binance Smart Chain-ka Uniswap-kana waxa ku dhisan Ethereum ERC20 okay hadda marka waxaan fiirin doonaa labo shay oo Uniswap-ka iyo bankeyga okay aniga hadda wallet kale aan soo aaday ayaa xoogaa yar kaas ayaan fiirinaynaa wax ma gadaayo waxna ma soo gadanaa laakiin saan sula aragno haddii ilaahay idmo wallet-kan hadda oo ii yaala $7 oo Ethereum-ka ii yaala iyo maxaa la dhahaa coin-kan ii yaala waa haddaad aragtaan waa Ethereum halkan ka yahay qaybta Ethereum-ka ERC20-ga isla wallet-kan haddana asoo Binance Smart Chain-ka ii yahay ee ugu dambeeya waxa ii yaala coin kale ii yaala okay waxaan ka bilaabanaa bankeyga haddaad taqaana adresska is good haddaadan aqoonin hore waxaan soo sheegnay coin market cap-ka ka soo raac haddaad hubtana aad taqaano uma baahnid qasabku maahan laakiin adresskaad ka soo raacda coin market cap-ka waad hubtaa yani meeshaad ka soo raacda adres qaad ma bixiyaan coin market cap-ka already is connected wuu connect gareysmay haddii laakiin uu ii doornaa lahay network-ga Binance maxaa lahaa sore qaybta Ethereum wuxuu weydiin lahay si aan hore usoo aragnay network-gaaga bedel buu leeyahay istuush garay isla markii hadda fiiriyo refresh aan dhaho okay connect markaan dhaho wuxuu leeyahay oyaa connect gareysmay mididii okay kadib ayay markaan qaadaa wale okay halkan uu weydiiyey switch network uu leeyahay okay network uu bedel Binance okay waxaad aadaysaa trade exchange waa inta ugu baahanahay bankeyga intaas aan ugu baahanahay wax kale aan ugu baahnaa male halkan waxaad ka helaysaa halkan ayaad ka helaysaa saddex xariijin trade kadib exchange
okay connect wallet okay wuu connect gareysmay kadib lacagta ku taala inaad wax ku gadato BNB hadday tahay BUSD hadday tahay USDT hadba lacagta ku taalo ayaad dooranaysaa aad rabto inaad ku bedesho okay tusaale ahaan haddana BNB waxay u yaalan iconinka laakiin ama kana yaalo kan raba inaan bedelo wax ku bedelo ayaan dooranayaa BNB waa yaalo tusaale ahaan oo uu dooranaya BNB coinka aan rabo inaan gato hadduu halkan igu jiro halkan aan ka dooranaya okay hadduusan halkan oolin oo macnaha ugu jeedin tusaale ahaan paid oo kale aan rabaa kama muuqdo maxaan sameyn waxaan sameynayaa coin market cap kana aadaya oo sorry coin market cap ka weli laguma soo dirin adresska maxaan dhahaa smart chain ka ku dhisan oo paid ka laguma soo dirin laakiin wuxuu ugu jiraa telegram ku ugu jiray ayaan hore halkan aan keensaday away okay weli maysan kusoo dirin laakiin halkan uu yaalay adresska ayaan soo qaadanayaa tokenka aan rabo inaan ka gato bankayga oo ku dhisan Binance Smart Chain-ka okay soo qaatay bankayga imo halkan ku dhufo kadib sorry maxaa ma ku maqlo Axmedow okay adres halkan ku koobiyeenaya marka isla markii coinka ku dhisan yahay soo qabanaya marka kadib waxaan leeyahay import okay wuxuu ku sheegayaa aniga mas'uuliyad waxaan kan iyo bla 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 iska digriin ah I understand hada shaqo marid ana shaqo leh okay kadib inta aad rabto inaad gadato 0.01 meeqa xabo ku sanaa lix xabo waxay ku noqonaysaa paid no laba intaas aan rabaa ama max ka dheh intaas paid ayuu ku sheegayaa sameys halkan laga bedelaa gaaska waay hadda ord aad rabto iyo tartiiba daarto marka badanaa coin qaarkood uma baahni inaad badiso badanaa waxaa aan badiyaa kaliya markii coin soo lisgaray aan rabo inaan gado saan laga hormarin markaan rabo inaan bedelin halkan saan ka bedelaa 12 state waxaa rabto 9 laakiin hadda already one baa ii door okay alor tiradaas haddaad ku qanacday swap after swap markaad dhahdo confirm swap haddaan dhaho isla marka wuxuu weydiinayaa confirmation uu weydiinayaa wuxuu leeyahay intaas wuxuu kaa goosanayaa fee bla bata confirm haddaan dhaho isla markii hadduusan qiimaha isbedelin uu ii gadmayaa wuxuu ii soo gelayaa bedelba okay meeqa xabo okay bedel waan dhahay okay kan mar walba uu ku sheegay hadduusan coinka uusan manual ahaan kugu jirin uu ku sheegayaa uu ku dasmaa automatic tiraadle isla marka lacagtan way baxaysaa arniyo how meeqa BNB aan geliyay kulliyan geliyay okay isla marka wuxuu yiri okay waa la order gareeyay waa la qaato xaga halkan ka eeg marka bet betka waa kana 22 xabo bet maarta okay inaan iska gadaan rabaa halkan aan raadinayaa bet okay maxaan ku bedelayaa ma BNB waxaan ku bedelayaa coin kale BUSD aan leeyahay tusaale bedel aan leeyahay 22 xabo bet waxay noqonaysaa $12 bay noqonaysaa sidoo kale si lamid ah enable paid aan leeyahay hadda already approve aad soo sameeyay ima baahan haddii kale approve uu weydiinaya enable paid okay tan waa approvement oo kale waa haddan waayo marka ugu horeyso coinka haddaadan gadin approvement kaa rabaa approvementka markaad sameyso ayaa gadi kartaa tusaale ahaan waxaan leeyahay confirm swap markaas uu imaanaya waayo haddaad swap uu weydiiyey tan waa marka hore approvement waa inaad sameysaa coinka markuu cusub yahay aadan gadi aad gadayso ibtishada markaas hadda maartaa swap baa soo baxday hadda haddaan dhaho swap lacagtaas wuxuu ii sheegaya intaas xabaan gadaya intaasaad helaysaa confirm haddaan dhaho sidoo kale
fee buu weydiinayaa fee markuu weydiiyo confirm aan dhaho coinku wuu baxayaa lacagtaas ayaa ii soo gelayso laakiin hadda ma rabo inaan gado waa iska yeelanaada meeshiisa waa sida bankay wax loo gato lisana gado markii wax lasoo list garay coin ay haysato oo had ogtahay suuqa macnaha inuu bam uu sameynayo kor aadayo sleepagekaaga mar walba badso 8 wixii ka badan ka dhigo 12 si hadhowti lagaga orod badin gaarigu ka orod badan yahay uu ka xawaar dheer yahay laakiin inta kale haddii wax degdeg kugu jiro wankaaga ilaa 3 coin qaarkood ma aqbalayaan ilaa 3 ama 5 oo ka dhigan karta taasi waa qaabka bankiga wax loo gato haddaad bankiga aad fahanto Uniswapna is the same waxay ku kala duwan yihiin malahan haddii Uniswapkan galeynaa laakiin wax ma gadaayo lacagtii waa bankiga waxaa iga dhameeyey xamburaal iga dhameeyey okay connectan leeyahay metamask halkan isla marka wuxuu yiri wrong network waayo waxa noo dooranaya aniga haddaad aragtaan network noo dooranaya Binance Merchant ku haya line mar walba okay Ethereum ka dhigo okay waxa ii yaal hadda halkan Ethereum iyo coinkaas oo HID la dhaho clear ii yaal alright okay waxaan rabaa tusaale ahaan Ethereum kayga waxaan ku bedelo coinka la dhaho HID usoo qabta hadduusan soo qabanin maxaan sameyn coin market capka aada addresskan soo qaadanaya halkan aan gelinayaa idaaseen haddii tusaale ahaan HID soo qaban HID addresskiisa waa kan okay halkan gelinayaa hadduu lacala tusaale kasoo qaad minuu soo qabanaynin aan helaynin HID maba helayo ma soo saaraya okay problem male waa qorayaa isla marka waa ka helaya okay allora amountiga qoro ku yiri amountiga balance ii yaal haddaan rabo haddii kale 0.0 I don't know 5 sade intuu ku siinay okay wuxuu ku yiri halkan iska fiiriya marka liquidity ma jirto yiri for this trade waayo laakiin inta halkan waa inaad u bedeshaa marka version 2 okay version 2 gaad okay version 2 marka waxa version 1 iyo version 2 bankiga buu lahaa hadda way ka saareen aan jeclahay old version waxaa jiray marka version 2 waa inay imaado okay version 2 marka imaado 0. wuxuu ku siinayaa tirada aad heli karto oo HID-ga kadib waa sidoo kale swap ayaad leedahay wuxuu ku tusayaa fee uu ka goosanayo haddaad iska gadaysin is the same hadda HID aan gadayaan leeyahay tusaale ahaan okay waxaan dhahaa maximum kuli gad intaas oy tiran bay noqonaysaa allo kan marka saan kuu sheegay markaad wax iska gadayso oo coin oo defaultiga ku ahayn aad iska gadayso wuxuu kaa rabaa inaad approve garayso ama tusaale ahaan markaad gadanayso ma ku weydiinaya swap kaliya laakiin marka kale oo aad gadayso coinkaas waa inaad allow garaysaa okay hadda wuxuu leeyahay allow garay Uniswap protocol to use this use your HID okay allow marka fee buu iga rabaa fee $8 buu iga qaadanaya you see haddii kugu jiran kuma shaqeynayo okay laakiin markaad gadanaysid uma baahna okay waxaan leeyahay balance fiican ma yaalo oo ku ogolaa 0.0 maxaan dhahayaa 2 okay swap kali u leeyahay maarta okay is the same markii inuu soo dad fahanto pancake swap is the same just swap oo Tron ku dhisan waa the same quick swap wax walba swap ku samaysan waa the same waxa loo baahan yahay kaliya fee-gaaska iyo waxa ugu danaysa lacagta ugu danaysa qasab ma Ethereum waxa ku gataa USDT taal USDT wax ku danaya laakiin mar walba fee-gaaska waa Ethereum haddii USDC taalo wax ku gadan karaa mar walba waa inaan haystaa laakiin fee-gaaska Ethereum waxaan u maleynayaa inaan ka jawaabay maxamed jaamac haddii su'aal kale dhimanta waa xasuusin kartaa haddaad nala joogto maxamed jaamac su-aalana insha allah muuqaalkan hoostiisa ayaad noogu reebi karaysaa waana saaxiibkiin siidkooda dhahayo kiribta waa hawdkeeduna ma wanaagsana in lagu fogaado inta muuqaalkan mid la mid ah aan ku kulmi doono
kiribta hawdkeeda ayaan lagu fogaan fursadahane yaan la dayicin sidaas iyo dhabaadino dhowr kala taliyo amana allah